nolosha kale miyuu modelka yahay bini aadamku uu ku daydo caalamkaynu maanta joogno waa caalam la yidhaahdo cuquusha waa la weeraraa caqliga bini aadamka waa la weeraraa si wixii la rabo looga dhaadhiciyo wuxuu ama ha xumaado ama ha fiicnaado waa in cidi un danka leedahay misaal basiidaan idin siinaya maalan augustii dhaweyd 11keedii anigoo toronto jooga ayaan tv shiday CNN baa ka soo baxay CNN markaa nin baa la waraysanayaa ninka la waraysanaya wuxuu leeyahay qaanuun baan raadinayaa ah in la sameeyo adduunku gaar ahaan United Statesku Maraykanku inuu ictiraafo maalinta nigiska buu leeyahay nigiska soo ma taqaaniin underwearka buu maalin rabaa in la siiyo waa kuwan maalinta AIDS-ka maalinta waxaa maalinta soo ma maqashaan wuxuu rabaa maalintii nigiska in la sameeyo signatures buu ururinayaa 50,000 buu marinayaa 50,000 oo signature buu marinayaa saxiix ayuu soo ururiyay wuxuu rabaa inuu badiyo saxiixyadaasoo 1 milyan gaadhsiiyo si uu kaysku u noqon karo kays isturtiingahoodii yani kongareska la hordhigi karo oo markaasi looga doodo maalinta nigiska waxay weydiiyeen maalinta nigiska maxaa laga faa'iidayaa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi markii aan daraasayey waxaan arkay buu yidhi suuq dhaqaalo fiican inuu ku jiro waxaan dareemay buu yidhi nigsaanta lagu xidho maraykankaan xisaabiyey waa $13 billion baa ku baxa buu yidhi haddaan maalinta nigiska sii sameeyo buu leeyahay markaa waxay noqonaysaa waa market aad u cajiiba marka marketkaasaa rabaa inaan qabsado buu leeyahay si uu marketka u qabsado ayuu ummadda dhan wuxuu rabaa inuu u sameeyo maalintii nigiska maxaan markaa maalinta nigiska tusaale ugu soo qaatay yani waxa weeyaan waxaan laynoo sheegaya tirada badan leh nolosha macna kama leh inagunba wax waynu aragnay waxa magac lagu tiriyey waxa laga yaabaa maanta haddii aan idin weydiiyo nabi muxamed mise caruuruu dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican uga jawaabi doon laakiin haddaan idin weydiiyo David Beckham imisuu dhalay waa la wada garan karaa waayo Beckham iyo Maradona iyo kan iyo hebelada tani waa laynoo buunbuuniyey dabeetana wax weyn oo cajaba baa laga dhigay laakiin really haddaad caqli fiican ku eegto maxay qabtaan caag baa loo neefeeyaa dabeetana area la yidhaahdaa 2 birood dhex geliya soo intaa maaha intaasi nolosha bini aadamka maxay ku kordhisaa caag haddii la neefeeyo oo dabeetana 2 birood laga dhex saaro waxba kuma kordhiso laakiin waxa loogu talagalay in qaabkan laynoo fakarsiiyo waxa la yidhi ninka kani caaggaa la neefeeyey 2 birood la dhexeeyo $40 milyan oo daale ku qaataa $40 million ayuu ku qaataa waxa jira Western Europe dhalinyarada waxa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dhalinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sanadooda oo asliyan ku salaysan in da'da intuu ka yariyo qofka si loo hayn karo aanu suuqa shaqada iyo waxa si u soo gelin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayaadka bulshada mesela Yurub lixdanada wixii ka horeeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka Yurub waxa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horeeyay ardada jaamacaadka ku jira France oo kale 1968 kii ardadii jaamacaadku inqilaabadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar labaad thawra Faransiya dib loo inqilaabo waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ay ka faa'iideysteen dhalinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyay laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxa loo fakiray suuq cusub in loo sameeyo sport and music baa la geliyay qofka dhalinyarada waxa la yiraahdo waa caalamkan siyaasadani waxa ka bax caalam kale adigu leedahay
caalamka aad leedahay waa maxay ama waa music damdamtaa dhegayso iyo un dadkaa qaylinaya oo weliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literatureka haddii la eego dadkan qaylinaya oo dhamme cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro waa uun iska cabaad lagu daray music lagu daray iyo kuwaa la yidhi kubadda area kubaddu waxaa laga yaabaa inaad isleedahay war mustafa maanta ma sportigu doonaya inuu wax ka sheego ama uu ceebeeyo qofka bini aadamka ahi inuu jidhkiisa kala bixiyo oo dhisa waa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad un loo adeegsada ahayd hobby bay ahayd hobbyga maxaa la yidhahdaa qofku shaquu haystay waxaana hobby ahaan buu samayn jiray ma jirin nin yidhaahda anuu kubad baan ka shaqeeyayo intaan usoo kallaho lacag laygu siiyaa ma jirin ee qofku shaqo kale uu ka lihi jiray dhakhtar buu ahaa askari buu ahaa booliis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kale uu haystay kubadna waa ciyaari jiray kubaddu markaa waxay iska ahayd nooc entertainment yaroo fudud iyo inta ugu badan le wuxuu qofka bini aadamka isku dayo jidhkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin kaa waa laga saaro waxa la geeyey suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkaadka ugu waaweyn ee maalqabeennaa waxa laga dhigay inamadan yarare ka dhex boodboodaa in mid waliba 40 milyan qaato waxa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunidoo dham ay tviyada hor fadhida la yidhaha koobkii dunida la ciyaaraya koobka dunidu muxuu yahay usbuuc kale in la hor fadhiya la yidhaha koobkii yurub baa la ciyaaraya dadkii oo dhan koobabay daawanayaan waayo waa model si loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxa laga yaabaa adigu maanta inaad adna isweydiinin subaxii marka iskuulka isugu timaadamba waxaad tidhahdaan xalay yaa badiyey liiga kee sarreeya toddobaadkan Manchester United baa ugu sarreysa iyabaa lagu muransayay Real Madrid baa wada maxaa waxaan keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identity-gii qofku waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaatay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaanahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa model ku ah yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima oo ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala waxaad garanaysaa noloshu inaad wakhti yar joogayso wakhtigaa yar aad joogtaana inuu yahay wakhti lagu itixaamayo lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysato waxaad og tahay in aad dhiman doonto dabeetana lagu soo bixinayo aakhiro la imanayo wakhtigii yar ayaad joogtay wixii aad qabatayna in lagugu xisaabin doono yaa model ku ah markaa yaa tusaale ku ah ilaahay baa qur-aanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah ilaahay subxaana wa tacaala intuu ambiyada ka soo warramay buu wuxuu leeyahay ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih kuwaasi baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa kuwii alla hanuuniyey ee fabihudaahu muqtadih hanuunkooda ku daya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala hanuunkooda yacni suluugooda dhaqankooda qaabkay u fakerayeen qaabkay u cibaadaysanayeen qaabkay nolosha u arkayeen siday u fakerayeen iyaga kaga dayda baa ilaahay yidhi ilaahay qur'aan wuu soo dejin kari lahaa sidiisa u qoran oo dadka la yidhaahdo akhristoo faahfaahsan laakiin ilaahay wuxuu soo diray waxyi kastoo uu soo dejiyey rasuul baa la soo raaciyey rusushu maxay qabanayeen waxay qabanayeen inay noqdaan tusaalaha xayiga tusaalaha nool ee loogu talagalay bini aadamku inuu ku daydo si uu u raaco waxay ahayn tusaale la rabo in dadka la tusiyo koo waxaan la faray inuu yahay wax la samayn karo fii maqduuri lbashar bini aadamka awooddiisa wax ka mid a inuu yahay inuu ariiqa saxa yahay qaab nololeedka ugu fiican inuu yahay ciddii tilmaami lahay walidalik waxaynu ku celcelinaynaa leenahay waa inaynu si fiican u daraasaynaa u garannaa ciddaynu ku dayan lahayn ciddaynu ku dayanaynaa waxa weeyaan bini aadamkii ilaahay abuuray oo dhan kuwii ugu fiicnaa waxa alle dad abuuray waxa ugu fiicanoo ummad walba kii ugu fiicnaaya ilaahay ka doortay waa nebi ama rasuul ummad kasti kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama waa rasuul
nebiga iyo rasuulka waxaa loogu talagalay inuu model u noqdo ama shaygii bini aadamka oo dhami uu ku dayanayay inuu noqdo. waxaan ku dayanaynaa min bacdi dalik kuwa iyagu rabeeyeen oo kobciyeen. haddaad fikraddaasi qaadato waxa aad dareemaysaa inaad adigu dunida ustaad markaasi u tahay. qofkan